Ramadan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya dunida qodobada wararka ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xaaladda caafimaad ee Soomaaliya ee COVID-19 oo kor u sii kacaysa iyo shacabka Soomaaliyeed oo aan ku baraarugsanayn xanuunka COVID-19 una arka inuu yahay hargab dalalka Mareykanka, Itoobiya iyo Midowga Yurub oo safka hore uga jira wadamada baadi goobaya sidii ay u midoobi lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland. wasaaradda gaashaandhigga Kenya oo shaacisay qorshe ciidamadeeda ay uga saari lahayd Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku faraxday qorshahaasi. ganacsatada beeralayda qaadka Kenya oo diiday qaadhaan loogu talagalay xanuunka COVID-19 kuna jawaabay in lacagtaasi ay jirto Soomaaliya. hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo Djibouti ku amaantay qorshaha ka hortagga xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka caawa iyo dunida. daawadayaal ku soo dhawaada warka oo fidsan. waa habeenimo Khamiis ay sii baxayso Jimcana uu soo galayo 14 May. aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay warbixinteeda maalinlaha ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo adduunkaba ay la socodsiiso taasi oo ku aadan xanuunka COVID-19. wasiiradda caafimaadka ayaa shacabka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in ay ilaaliyaan sidii looga hortagi lahaa xanuunka COVID-19 qof kastaabana uu badbaadiyo naftiisa iyo nafaha shacabka Soomaaliyeed. waxaa soo kordhay 24 saac ugu dambeeyay 65 xaaladood. waxaa rag ah 41, waxaa haween ah 24. numberkaas 65 koonfur galbeed waxaa joogto oo laga helay 24 qofood, Somaliland 14 qofood, Banaadir 13 qof, Puntland 13 qof, Jubbaland 1 qof. dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 sano ay ka yar waa 13, 20 ilaa 39 waa 50, boqolkiiba 40 ilaa 59 waa 20 qof, 60 sano iyo ka weyna waa 16 qof. wasaaradda gaashaandhigga Kenya ayaa baahisay in la helo qorshe si ay ciidamadeeda ugala soo baxdo dalka Soomaaliya. ciidamada Kenya oo kamid ah midowga AMISOM ayaa waxa ay Soomaaliya soo galeen dhamaadkii sanadkii 2011 xilligaas oo ay Soomaaliya ku soo galeen howlgalkii Mindeleja oo ay kula dagaalamayeen xarakada Al-Shabaab. xilligaas ayaa Al-Shabaab ay gudaha u gali jirtay dalkaasi Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. kadib ciidamada Kenya ee soo galay Soomaaliya ayaa ku biiray ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM. haddaba howlgalka ciidamada AMISOM ayaa lagu wadaa in Soomaaliya ay iskaga baxaan December 2021 sanadka soo socda haddii aysan wax isbedelin sidii horeba u dhacday. iyadoo ay jirto xaaladaasi in ciidamada Kenya ay kala baxayso ciidankeeda dalkani Soomaaliya ayaa haddana waxaa si weyn u soo dhaweeyay dowladda Itoobiya oo ku faraxsan in ay safka hore uga jirto ciidamada midowga Afrika ee xasilinta ka wada Soomaaliya oo dowladda Itoobiya ay rabto inay noqoto dowladda ugu tunka weyn. weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii Kenya. dhinaca kalena ganacsatada qaadleyda ee iskala beeraha uu ka soo baxo qaadka ayaa waxa ay diideen qaadhaan dowladdu ay ku soo qortay ganacsatadaasi. qaadhaankan ayaa ah mid loogu talagalay xanuunka COVID-19 waxaana ganacsatadan qaadleydu ay ku jawaabeen isha kaliya ee aanu ka helaynay dhaqaalaha habeen kasta lacag dhan dhowr milyan oo beer kastaaba ay u xaadirto waxa ay ahayd isha ay ka soo baxdo dalka Soomaaliya. Soomaaliya waa meesha kaliya ee dhaqaalaheeda aan joogto u helo. waan ka xunnahay in muddo dhaqaalahaasi naga xidhmo. waan cambaaraynaynaa xanuunka COVID-19 waayo dhaqaalaha beeraheena qaadka ayuu curyaamiyay. waxaan u baahannahay in aan la nimaadno qorshe lacagtaasi aan ku soo celino marka qaadka dib loo furo. ganacsatada ayaa intaasi waxa ay ku sii dareen shacabka Soomaaliyeed waanu ku xisaabtamaynaa
qaadkeena iyaga ayaa qaata, dowladooda waxa ay ka jecel yihiin qaadkeena. taas ayaana keenaysa in ay u hoggaansamaan awaamirta ay soo saarto beeralayda qaadka ee wadankani Kenya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo danjiraha dalka Soomaaliya u jooga wadanka Mareykanka ayaa waxa ay wadaan qorshe lagu doonayo in lagu mideeyo Soomaaliya iyo Somaliland. aqoonyahan u dhashay wadankaasi Mareykanka oo lagu magacaabo Mitchell Robin oo isagu u dooda madax banaanida ay ku doodayso Somaliland ayaa waxa uu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Mareykanka Donald Yamamoto. waxa uu ku eedeeyay in ay wadaan nidaam qasab ah oo ay ku dhex galayaan dowladda federaalka Soomaaliya amaba ay ku mideynayaan buu yiri Soomaaliya. Mitchell Robin ayaa sheegay in qorshaha uu ku sheegay nidaamka khasabka ah ee uu wado safiirka Mareykanka Soomaaliya u jooga oo kaashanaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo uu ku tilmaamay hogaamiye aan waaye arag ahayn xilli uu muddooyinkii dambe waday qorshayaal uu dib ugu furayo wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo haatan aan dhicin. Mr. Robin ayaa ka hor yimi hadal dhawaan uu jeediyay Yamamoto oo ku dalbanayay heshiis midnimo iyo mid maamul oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay si wada jir ah u galaan. dhinaca kale ergeyga u qaabilsan midowga Yurub arrimaha Soomaaliya ayaa daaha ka qaaday xilli uu toddobaadkan khadka taleefanka uu kula xidhiidhay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. intii shirku uu socday ayaa ergeygu waxa uu ballan qaaday in ay fududeyn doonaan dibna ay u bilaabi doonaan wada hadaladaasi. dhanka kale diblomaasigan midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal waara laga gaadho khilaafkan muddada dheer soo noqnoqday ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland. haddaba kulankaasi ayaa waxa uu ahaa maalintii Talaadada ahayd ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd maalinta midowga Yurub ee 2020. dowladda Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay 2 diyaaradood oo helicopter ah. wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan waxaa lagu wareejiyay 2daasi diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca. haddaba diyaaradahan ayaa loogu talagalay in lagu buufiyo ayaxa ku habsada Soomaaliya oo sanadadanba ku soo noqnoqonayay dalka Soomaaliya kaasi oo aafo xoog loo geysanayay beeralayda Soomaaliyeed iyo waliba xoolo dhaqatada Soomaaliyeed. bal iminka iyo dhankaasi magaalada Djibouti. dowladda Djibouti oo lagu amaanay qaabka ay u xakameynayso xanuunka COVID-19. haddaba madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu dalka Djibouti uu ku amaanay qaabka ay uga hortagayso xanuunka COVID-19 isagoona yiri shacabku waxa uu ahaa markii hore kuwa aad isu dhigtay waxa ay yaacayeen banaanka balse ugu dambeyn waxa ay la falgaleen isna garab taageen dowladooda. waxaana madaxa hay'adda caafimaadka WHO ee dalkaasi Djibouti uu sheegay in 90% dadka ku nool Djibouti ay yihiin kuwa maray nidaamka shaybaadhka xanuunka COVID-19 ana uu si weyn ula dhacay qaabka ay u soo gudbinayaan xogta rasmiga ah ee xanuunka COVID-19 iyo waliba tirada ay baadheen. inkastoo dalka Djibouti uu yahay dal aad u yar dadkiisuna ay yar yihiin haddana waxa uu yahay wadanka kaliya ee hay'adda WHO ay qaaradda Afrika ay ku amaantay shaqo wanaag iyo waliba qaabka ay uga hortagayaan xanuunka COVID-19. dabada wadayaalintaasi waxaan ku soo afmeerayaa war wixii aan idinka hayay guud ahaan geyga Soomaalida iyo waliba caalamka intiisa kale oo aad ka daawanayseen channelka Sakariye Wadani. tan iyo intii aynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.